أصحاب مقالي سida caadadanu ahayd waxaan galaynaa casharkeeni ahaa sida loo habeeyo ama loola socdo dhaqdhaqaaqa saacadaha YouTube-ka. Marka asxaabay waxaan soo galayaa analytics Google, waxaan soo galayaa YouTube Studio, waan kasoo galayaa kabacdi sida aad arkaysaan waxaan ku jiraa qaanadan asxaabay laba mid aday kuu fiican tahay haddaa mar YouTuber tahay in aad mar walba meeshaan jawigeeda la socotid ama inaa asiga dhan iska xirtid oo janal kale aa iskaga isticmaashid markaa u baahatid aad soo gashid. wax labadaas ka fiican ma ay jiraan. sidaas daraadeed YouTube Studio horta qaybo badan ma ahan. optionkiisa oo intaan dashboard oo ah qaybtii saacadaha iyo waxyaabahaas lagu ogaanayay iyo qaybta videoga ah oo sida title-ka marka laga bedelayo iyo waxyaabahaas ah. intan waa commenti waxyaabihii lagu soo qoro ayaa arkaysaa. inta waa analytics, haddaa ku dhufatid meesha unbuu asna ku keenayaa. halkaas ayuu ku keenayaa. marka intaadan meeshaan imaan ka hor waa inaad ka saxdaa qaybta maxaa la yidhaahdaa Google-laha inaad kasoo saxatid ayaa aada u fiican. marka asxaabay waxaan rabaa inaan ogaado settingigeyga. waxaa ii saaran important waxyaabaha muhiimka ah. all notification haddaad doortidna waa lamid, laakiin ma fiicno in aad ka dhigtid ammaan. qaybta labaad hadda waxaa laga yaabaa janalka in la fiirsanayo saacadaha unbaan ku ogaada asxaabay. marka haddaba meeshan waxaa ku qoran really time views 48 saac ugu dambeysay inta qof ee daawatay waa 340 qof. okay 340 qof. waxaan rabaa inaan ogaado 60 daqiiqo ee ugu dambeysay. haddaba waxaan ku dhufanayaa meesha ay ku qoran tahay really time views. waatana really time 48 hour waxaa daawatay 340 qof ama 340 views ayuu helay janalkan. okay haddaba 60 daqiiqo ee ugu dambeysay inaan ogaado ayaan rabaa. waxaan ku dhufanayaa meesha ay ku qoran tahay really time 48 hour. waa kana waa ku dhuftay. saa u jeedtiin waa bisha Agosto lasoo dhaafay, September, October, November, time last 360 days, 9 days, 28 days, 7 days, 48 days, 60 daqiiqo ee ugu dambeysay ama halkii saac ee ugu dambeysay ayaan dhufanayaa. okay markaas waxaa fiirisay 24 qof 60 minute ee ugu dambeysay, waana qaybta viewska. haddaba aan ku noqono qaybta saacadaha. waxyaabahan sida la iskugu xiro waa waxyaabihii title-ka adiga ku ahaa celcelis ahaan iyo waxyaabihii dhan kaaga sheekeeyey 76, 72, 61, 49, 48. waa fiigaas inta kala daawatay 48 saac ee lasoo dhaafay. okay waatana marka watch time minutes 1733 minute ayuu haystaa. ayada ku kor dhufo oo ogow 48 saac maxaa kugu soo sijaaday 60 daqiiqo ee ugu dambeysay ama halkii saac ugu dambeysay maxaa kugu soo sijaaday. ayada ayaan ku kor dhufanayaa. haddaba asxaabay waatana wuxuu yiri 28 maalin ee ugu dambeysay waxaa la daawaday 1733 saacadood.
ama minute. Okay, waxaan fiirinaynaa last 7 days waa un intii maxaa yeelay janalka wuxuu subsan yahay intaasoo beri. labadan kor ayaa hadda isbedel laga arki karaa. Real time 48 hour 48 saac ee ugu dambeysay. haddaba ayadaan ku dhuftay. Okay, 48 saac ugu dambeysay waxaa la daawaday 1267 minute ayaa la daawaday. marka optionadan hoose waxyaabaha calaamadahan ku qoran markay saacadahaaga meeshaas aysan ka soconin ay ka istaagaan waa in aad meeshan kale ku dhufataa. weliba lambarada meelaha kugu qoran aad doorataa 200 160 120 80 40. waa inaa calaamadaha xariiqyaasha meel ku aadisaa. Okay, sidaas darteed haddana waxaan fiirinaynaa real time 48 hour. marka saacad 60 daqiiqo ugu dambeysay waxaa la daawaday 48 minute ama 100 minute ayaa la daawaday. saacad cafan waa la mashquuliyey. marka asxaabay qaybta kale oo waxaa dhiman sida loo habeeyo YouTube studio-ha oo Google-ha dhexdiisa ah. insha Allah cashirka xigo asoo faahfaahsan asoo aad ka heli doontiin asigoo aad la dhici doontiin ayaa idin soo gelinayaa. waa in jeclahay waxyaabo badan inaad iga faa'iidin ayaan doonayaa. teeda kale janalka magaciisana waxaa la yidhaahdaa caawiyaha janal kasto. asxaabay marka qofkii dhegeysto ogow wax faa'iido ah ayaa lagu hayaa. janalkaagaa saacadaha lagu buuxinayaa, subscribe-ka lagu buuxinayaa, weliba si fudud oo dhaqso ah oo haddii uu badato maalmo ah. marka insha Allah haddaa aragtid walaalkaa kale u shargale subscribe, like, comment iyo gambaleelka intaba hanaga iloobin. aad ayaa idin salaamayaa meel kasta oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan. waa Muxsin Janal balse bedeli doona magacaas oo baxsan doono caawiyaha janal kasto.